Soomaalidu tan iyo wixii ka dambeeyay qarnigii 15aad dhil u joogay ku ahaayeen gobolkan Geeska Afrika. Dagaalo badan ayaa dhex maray iyaga iyo Xabashida. Waxaanse kula wadaagayaa dagaalkii ugu baanaa uguna taariikhda weynaa dibse laga ilaabay isla markaana laga qariyay jiilalka cusub ee waqtigan dhulka Soomaalida ku wada sugan. Magaca Soomaaliya waxa uu ka dhashay midowga laba gobol oo horey gumaystihi u kala jiray waxaana la kala oran jiray Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya. Haddana waa Soomaaliyada xurta ah qayb ka mid ah waxa loo yaqaanaa dhulka Somaliland waana dhulka Waqooyiga Soomaaliya halka Koonfurta bartamaha iyo bariga Soomaalina hadda la isku yiraahdo Soomaaliya waxayna ka kooban tahay maamulo badan oo ilaa 6 gaaraya. Afrikaanta kale gumaystayaashii reer Yurub waxa ay ku rideen qalbi jab raagay halka Soomaalida oo ah naflaha ugu dhiifoon inta maqaarka madow leh lagu kari waayay doonistii gumaystaha waana goorta uu bedelmay gumaystihii shaxdii uu ku soo galay ee ahayd hasiimay kadibna dhaxal dhulkooda dadkana adoonso. goortii uu ogaaday intaasi aanay sinaba suurtagal u noqon karin waxa uu qaatay dariiq labaad oo ahaa qaybi oo qori isugu dhiib qola talada saartan kalena ku miinay ka tag dhulkooda laakiin sniperka ishaada iyo taladaada baaqi ah ku ahaadaan dhulkooda. Intaas oo dhan waxa sabab u ahaa cabsi durbaba degtay qalbiyada gumaystaha waxa uu xaqiiqsaday haddii Soomaalida oo haysta cabirka dhulka fidsan ay ka degan yihiin gobolka Geeska Afrika oo sidoo uga tago inay dhisa karaan dawlad ka miisaan culus dawladahooda ayna mari karaan cawaaqibta damacoodii gumaysi waa wadamada reer Yurub ee Soomaalida hore u soo gumaystay. Gobolka ayaa lagu talaalay gumaysta labaad oo ay u arkaan fursad ay Soomaalida iskaga mashquuli karaan tirayalan xadidnayn ayna ciidamadii Amxaarada iyo beela Soomaaliyeed fududaystareen. Waxaana ugu taariikh weynaa dagaalkii Balcad ee Xabashida iyo beesha Ujeejeen Ismaan kaas oo dhacay sanadkii 1905 70,000 ayaa beeshii la soo weeraray looga dilay mar damba ayaana gurmadhaan waxa ugu yimid beesha Abgaal Ismaan oo ay wadaag iyo walaalintaba hayeen. Isbahaysigii cilmi Ismaan Dalandoole waxa ka dhashay in ciidankii Amxaarada dib loogu celiyo fadhiisimahoodii waase goor gaadmadii koobaad ay ku go'day beeshii Ujeejeen Ismaan oo xilligaasi ka tira badnayd walaalahooda Abgaal oo cilmi Ismaan ay isla hayeen. Hiilkii labada beel Abgaal Ismaan iyo Ujeejeen weli sidiisii ayuu u taagan yahay. Ma ahan Ujeejeen oo kaliya ee geladii Abroone Wacdaan Weyteen Wagardhac Leylkase Wadalaan Gugundhabe iyo Murusade oo ahaa lafa u darirkii hore ee Soomaalida haya maanta guushii ay keeneen dhibic 5 ka ah waana shaxdii gumaystaha oo sidoodii loo rumeeyay. qabiiladii iska caabinta oo gablankoodii gumaysi ahli ku mutay iyo safkii dambe ee dirirta shisheeyaha oo caarada u fadhiya culaadinta kuwa ay xukunka iyo talada qabsashadeeda ku muteen ayaa Soomaaliya ku wada sugan waqti xaadirkan waana dirsi iyo qaranbaxa dhigaalkeedu xurnimada ka horeeyay cid garataas gayiga laga waayay. Markii aan kala gaabanay markiiba magacyo ka turjumaya marxaladii ay nabadeen ayay dib inoogu sameeyeen macnaha Landheere iyo Langaab ay inta hindisaha leh taariikhana baara u arkaan degasho dibadda inooga timid kana hartay gumaystayaashii labada wadan. Eeg oo baar milicso tirada ajaanibta reer Yurub ee afkeena bartay eriga koobaad ay diradda saaraan waa kelimadan sumaysan ee Landheere ama Langaab oo laga wado mid lagu sii kala dilayo beelaha Soomaaliyeed. waxaan ahay Cali Baashi Cabdi Lowreed waxaan yuusadan kala socotaan waana warbixinteena joogtada ah ee kaga hadalno dhibaatada Soomaaliya ka jirta iyo dhibaatooyinka raagay kuwa dibadda iyo sidoo kale kuwa gudaha. Haddii ay tahay markii kugu horeysay maqaaladeena iyo muuqaaladeena ku soo gaaraan kamid noqo saaxiibada sida joogtada noogu xiran muuqaalkan shariya laga sugu daro la wadaag bulshada Soomaaliyeed rukumo halkan si aad daqiiqad walba iyo goor walba baad uga hesho xogihii ugu dambeeyay caalamka iyo dibadda iyo taariikhyo iyo dhigaalada ka qori doono gudahan Soomaaliya iyo sooyaalkeedii dahabiga ahaa iyo midka 30 sano ee la soo dhaafay burburka ahaa sababihii keenay iyo Soomaalida halka laga maagay. qoralba halkan ayaad ka heli doontaan arrimahaas iyo akhbaraadkaasi oo idil fadlan ka mid noqo saaxiibada sida joogtada inoogu xiran.